السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiin ba meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeena Nadaara Show. maanta waa maalinimo Isniin ah, taariikhduna waa 13 bisha Agoosto sanadka 2023. barnaamijkan waa kii ugu horeeyay maanta hadda aan idin soo gudbinayo. laba qodob oo muhiim ah ayaan kaga hadli doonaa barnaamijkan. qodobka ugu horeeya diyaarad qaada gantaalaha nuclear-ka oo muddo 8 saacadood ah oo Ruushku ku wareejinayay xuduudaha wadamada NATO. fariin culus oo uu Ruushku u diriyay dalalkaas oo ah ha u malaynina Ruushka inuu tabar dareeyay kulligiin dushiinaan taaganahay. haddaba sheeko cajiiba oo arintaa ku saabsan ayaan barnaamijka ku faaqidi doonaa. waxaa sidoo kale aan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa khilaaf soo kala dhex galay Imaaraadka iyo Mareykanka oo joojiyay diyaarada uu ka iibin lahaa Imaaraadka isagoo ka caraysan dowlatuska Imaaraadka uu doonayo inuu la sameeyo Shiinaha. haddaba sheeko kale oo arintaa ku saabsan ayaan iyana barnaamijka qaybta dambe ku eegi doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. kula wanaagsan khiyaaray meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale barnaamijyadeena aanu idinkugu tala galnay maanta oo Axada. haddaba barnaamijka qaybtiisa ugu horeysa ayaynu guda galaynaa. muddooyinkan sidaad ogtihiin reer galbeedku waxa ay dagaal toos ah la galeen Ruushka iyagoo hubkoodii ugu casrisanaa geeyay Ukraine si dhiig bax loogu rido Ruushka loo tabar dareeyo. laakiin Ruushka intaasoo huba oo dowlad kasta oo ay geysay wax kasta oo la sameeyay waa laga saari waayay dhulkii uu ka qabsaday Ukraine. dagaal rogaal celina wax kasta waa la sameeyay waxba waa laga qaadi waayay. haddaba marka Ruushka muxuu sameeyay? saacadihii la soo dhaafay warbaahinta adduunka waxay ka hadlayaan sheeko cajiib ah oo Ruushku uu ku sameeyay xuduudaha wadamada NATO ku jira ee isaga dariska la ah. haddaba Mareykan iyo Canada iyo Norway iyo waxaasoo dhan bad waxaa ka dhaxaysa la yiraahdo iyo Ruushka baxrul mutajammada la yiraahdo badda barafka ah. bad barafa waaye ayaa ku taala. badda barafka ah ayaa marka waxaa la sameeyay Ruushku sameeyay wuxuu kiciyay diyaaradihiisa gantaalaha nuclear-ka qaada. waliba gantaalahaas diyaaraduhu waxay ku ridi karaan qaarad awoodda ay leeyihiin. muddo 8 saacadood ah ayay diyaaraddu saa u dhex maraysay badda. diyaaradda keligeed ma duusho marka ay hawada galayso waxaa dhinacyada ka soconaya diyaarado dagaal oo iyada sii waardiyeynaya. waa wadan dhan oo nuclear oo guuraya. ilaahu nagu soo dul ridinaha hadday xataa qaraxdo nuclear-kii wixii saarna waa la qarxaya. waa cajiib, waa halis weyn. marka diyaaraddaas fariinay ahaydaan leeyahay badda ayay 8 saacadood ku wareeganaysa. badduna way u dhaxaysaa NATO iyo isaga. ogaada Ruush ciyaarta ka socota Ukraine ciyaar ma u arko ee ciyaarta uu sugayo waa adinku leeyahay. haddaba war cajiiba oo lagu qoray bogga ay leedahay wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka Ruushka ayaan idiin soo gudbinayaa. waa tahay sida aad arkaysaan wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka Ruushka bogga ay leedahay dowladda itixaadiga ama midowga Ruushka ayaa waxaa lagu daabacay warkan. diyaaradaha waaweyn ee bambooyinka iyo madaafiicda rida ee wadanka Ruushka nooca la yiraahdo Tu-160 ayaa la sheegay noocooda cadcad oo khatarta ah inay fuliyeen howlgallo markaasi qaatay muddo 8 saacadood ah iyagoo howlgallada ka sameynayay hawada sare biyaha badda la yiraahdo Barnech
ama badda barafka ah ee dhinaca waqooyi iyadoo markaa ay ilaalinayeen diyaaraddaas intii ay howlgalku waday diyaaradaha dagaalka ee ruushka nooca loo yidhaahdo Su-35S. waa kaas wasaaradda gaashaandhigga ayaa soo bandhigtay arrintaas. waxay leedahay 8 saacadood howlgalaan samayn. marka meesha ay howlgalka ka samaysay khariidad ahaan aan idin tuso sida wadamadu ay ugu dhow yihiin neto ku jira. waa tahay sidaad arkaysaan maapka ama khariidada Russia waxaa badda barafka ah ee la yiraahdo Arctic Ocean la yiraahdaa ayay u dhaxaysaa. marka dhinacyada waxaa ka saaran USA, Canada, Denmark, Iceland, Norway. dhinacanna waxaa inta badan badda saaran Russia oo dhul weyn ku fadhida. marka waa arkaysaan wadamada baddaas ku wareegsan dhan waa neto ku jiraan. ogaada wadamada neto waaye. marka waxay leedahay korkiina taaganahay nuclear kasaasaan idinkugu dul hayaa. marka gabgabta iyo waxa kan joojiya. dagaalka xagga ka socda ciyaartii Afghanistan ee Mareykanka oo kale waaye. Mareykanka Afghanistan meeqa looga laayay maalin walba waxbaa laga dilay, waxbaa socday, dhiig baxa ku socday. laakiin Mareykan waa joogay. kan waxay leeyihiin kan ciyaarta xaggay ka socotaa laakiin hawshu waa socotaa. marka xaaladdu marka halkaasay maraysaa. aayatusu marka video wasaaradda gaashaandhigga ayay soo bandhigtay oo caddaynaya diyaaraddaas oo howlgalkeedii bilaabaysa soona dhammaynaysa. waa tahay marka qaybtaas waxaa daawateen arrinta ku saabsan diyaaradda ruushka ee dul maraysay hawada badda barafka ah. haddaba walwal badan ayaa la sheegayaa inuu ka yimid dowladaha neto ee dariska la-ah baddaas oo iyagu markaa khalkhal badan u soo food saaray. diyaaraddii si nabadgelya ayay ku laabatay oo booskeedii ayay ku noqotay. waa tahay qaybta ugu dambaysa ee barnaamijka waxaan idinkugu eegayaa Imaaraadka iyo Mareykanka oo isqabtay. Mareykanka oo diiday inuu ka iibiyo Imaaraadka diyaaradaha la yiraahdo F-35 ee qatarta ah ee Mareykanku uu sameeyo. haddaba ballan ayaa jirtay Imaaraadka hadduu heshiis dhab ah la galo Israa'iil in laga iibinayo diyaaradaha F-35. siyaasa Amerikaan weligaa ma maqash. maxallinka weyn waagii Trump uu joogay ayaa nimankan Imaaraadka Israa'iil heshiis la galeen in diyaaradaha laga iibinayo waxyaabaha ku bedeshayna ka mid tahay. laakiin hadda baashi waa isa soo laba rogtay. aan idin tuso warbixin wargeys Ingiriisa uu ka qoray sheekadan. waa tahay sida ay daboolka ka qaaday jariiradda la yiraahdo Financial Times ee waddanka Ingiriiska sababta keentay in Mareykanka uu dib uga laabto ama uu ka shakiyo in Imaaraadka uu ka iibiyo diyaaradaha F-35 ee casriga ah nooca la yiraahdo Shabax ee caalamka dhan aad looga jecel yahay ayaa waxaa la sheegay in arrintani ay muujinayso heshiiskii iskaashi ee Imaaraadku ay la galeen Israa'iil. macnaha heshiiskaas in looga bedesho ayay ahayd. laakiin Mareykanku hadda fariinmaanu jiitay waa diidan yahay. wuxuu leeyahay arrintan sababta marka Washington waxay ka baqaysaa in Imaaraadka ay markaa tiknoolajiyada diyaaradaha ay ka samaysan yihiin ee sirta ah ay u wareejiyaan Shiinaha
oo shiinuhu markaa uu khatar ku noqdo amniga maraykanka iyo xulafadiisa caalamka. marka sheekada marka halkaasay maraysaa. nimankii imaaraad iyagoon falastiin wejiga isaga ceebeeyey, carabtii kale dhabarka u jeediyey. imaaraadkii waxay lahaayeen diyaaradaha soo iibsada, israa'iil inay la heshiisaana idinka xigto. israa'iil heshiiskii la galeen. hadda marka waxaa leeyahay maraykanku waba ka fiirsanaa inuu imaaraadka ka iibiyo diyaaradahaas. sababta maxaa waaye wuxuu ka shakiyey maalin hore barnaamijkaan sameeyey waa ila socoteen in imaaraadka diyaaradaha maraykanka F-16 uu dhoolatus kula sameynayo shiinuhuna uu rabo tiknoolajiyada iyo waxa kale inuu xado. marka waxay leeyihiin diyaaradda F-35 hadday imaaraadku qaadato haddana waxaan aaminsanahay shiinaha inuu arkaayo uu tiknoolajiyadeena xadaayo. marka saas darteed annaga ma qorno israa'iil aan la heshiiyey iyo waxaas arrintan dib aan uga fiirsanaynaa. nimankii marka imaaraad waa ceebaysan yihiin. odagii maxamed bin zaayid ahaa afkuu taagayaa, diyaaradii waa loo diiday. xaalku marka halkaasuu maraa. marka siyaasadda adduunku waa sidaas. wixii aragtiya fakra a qabtaan soo qora fadlan, barnaamijka kaga qayb qaata. sidoo kale barnaamijka intaadan ka bixin hayloobin inaad like garayso oo share garayso. haddaad ku cusub tahay youtube-kana subscribe sar, haddaad ku cusub tahay facebook-ana follow garay. inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno meel kastoo aad joogtaan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.